like quruxda wax wajiga la marsado kaliya ma ka imaato ina yani muuqaal ahaan u noqotid qof qurux badan kaliya kama imaato kareem ama amarsate ama serum amarsate waxyaabo ma fahantay in guriga kale markaad joogtid dhar oo ku jecleysiinaya naftaada xiro aniga kale hadda waxyaabo asamay waxa kamid ah oo zaid ii jecleysiyo marka guriga joogo dhar waxa xirtaa taay dadka tamartaada cunaya dhan waa inaa ka dheeraad sababtoo ah walwalka ama stresska sidaa wada ognahay tamarteeni energy-geena wuu cunaya ma fahanteen laakiin dadka badankood ma dareensano kalsoonida naftaada inaad dhis muhiim ah dad badan gabdho badan oo aniba aqaano waxa jiraan way qurux badan yihiin haddana kalsoonidooda ma dhisno kalsoonida ku yar soo gabadh waxay isku aragtaa inay qurxaneen kaalaba ka dhaadhici waa qurux بدنتا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي إذا جعل السود وهذا من البأدون كجوكتان ومركلي ولاشي نسراب تدونو إذن ود مقال عصب وقرين هذا جنال كعصب تاي سبسكرايب نوصار هذا هورين ولجوج جرتنا لايك تاني إلاوين سود وهذا مركلي عاو حا إذن ودا مقال ديرجلين أو تلقلي قبلهيجا سيجار إيه قبله هويوينك سيجود قبلها أو تلقلي لكن سيجار إيه مادام هوي هاي هويوينك بسعة مقال كان فكرتي سوحوكي معدي جبر أصحاب تيدا igu xiran kamid ah oo maalin igu soo qortay TikTok-ga dhowr bari ka hore ahayd saa jeclahay in video soo dhigay markaas waxay ku dhaadeen Nasro sirta quruxdaada ka dambaysan nala wadaag maxaa waay maalin ka dambayso waa si qurux badnaanaysa maxaa waa sirta ka dambayso ani waa fikiray waxaas dhan maxaa waa Nasro ana isweydiiyay maxaa waa Nasro sirta ka dambayso quruxdaan iyo gabadhan sheegayso like quruxda wax wajiga la marsado kaliya ma ka imaato ina yani muuqaal ahaan u noqotid qof qurux badan kaliya kama imaato kareem ama amarsate ama serum amarsate waxyaabo badan oo isbiirsaday oo zaid muhiim ah waaye gabdhaheena badankoodna ma ku baraarugsano waxyaabahaas soo caabo waxa idin soo diyaariyay dhowr qodob dhiirgelin ahaana ay idin kugu talgalay insha Allah aan rajaynayo in wax idinka anfici doonto ilaa waxa idin soo diyaariyay 8 qodob oo muhiim ah maxaa la dhihi jiray hooyo walba ama gabar walba muhiim u ah taasoo qayb ka qaadanayso inuu qurux badnaado jirkeeda muuqaalkeeda yani dhinac walba okay idin bilaabo marka koowaad waxaa qodob koowaad idin la wadaagayo ka dheerow stresska ama walwalka badankeena ma ognin laakiin waa dilaa ma fahamteen quruxdaadu dilaaya caafimaadkaaga maskaxdu dilaaya waxa waa energy-gaagu dilaaya yani waxyaabo badan oo walwalka ama stresska baabi'iya quruxda gabadhan qayb ka tahay soo hadaa taa qof stress badan qof maanta dhan yani culeysii iska haystaan like wax walba nolosha dhinac walba stress ka haysto way adkaanaysaa de wax kasta amarsatid kareem kasta amarsatid kan ugu qaalisan adduunka xataa inuu ku qabto ama maxaa la dhihi jiray uu ka soo muuqdo korkaaga maanteen waa wada ognaana guys ma jirto nolol bilaa stress yani culeysa iska ka soo fuulaayo laakiin waxa waay ilaa xad yani ina adi xakamaysid nolosha dhib ha ka dhiganin sahal ka dhigo soo wixii markaas oo adig control karin ma control kartid iska siidaa iska fasax okay waxyaabaha stresska aad ku xakameyn kartid ama ku maareyn kartidna waxa soo hoosgalayo ina ka dheeraatid dadka oo toxic dadka sunta xiriirkooda ina ka dheeraatid oo maanta moodkaaga qaldayo walwalkuga abuurayo energy-ga ama tamartaada cunaayo ma fahamteen sidoo kale to friendship xataa toxic friendship ina ka dheeraatid yani qof walba is dhehaysid de maxaa la dhihi jiray qofkan caafimaadkaaga maskaxda ma u fiicna ama walwal ku horseedaya ka dheero inta ka dheeraan kartid waxyaabaha aad ku xakameyn kartid kamid stresska ama walwalka tamartaada cunaya dhan waa inaa ka dheeraad sababtoo ah walwalka ama stresska sidaa wada ognahay tamarteeni energy-geena wuu cunaya ma fahanteen laakiin dadka badankood ma dareensano midda labaad aan sheegaa maxaa waaye seexo hurdo kugu filan ugu yaraan 8 saacadood ama 7 saacadood waa inaa seexatid qodobka labaad waa zaid muhiim u yahay quruxda badankeena quruxdeena ma aaminsanin in hurdada qurux badan laga helo laakiin hurdada quruxay leedahay waxay leedahay caafimaad ay leedahay quruxay leedahay إلهنا يعني آيات قرآن إنه بشيء وجعلنا إلى لباسا وجعلنا النهار معاشا يعني وولو تلقى لما أنتن إن أشقيسن أردنا هبين كان دفر كأسكدافنو دلنير هذانا أنت بدنوات دفرنا لكن إلا حد إسكيري تضب ساعدود وغيران أم 6 ساعدود وهرد عافمات وكو في لنسيحو هذا دفرتي قروح ذا qayb weyn oo ka qaadanaysa quruxdaada way dhumaysaa dhafarkada yani daa'imatid caafimaadkaaga jirka ma u fiicno caafimaadkaaga muuqaal ahaan ama arag ahaan ma u fiicno okay
qodobka saddexaad waxaa waaye isagana aa idin raacinayo inaa cuntid cunto healthy cunto caafimaad leh, cunto isku dheelitiran. gabdho ismaqal ma jiraa iga cuna bariiskan oo halka saxan iyo baastan halka saxan oo habl isku siinayo, cunto protein leh, maxaa la dhihi jira cunto fiber leh, yacni wax isku dheelitiran cun. sidoo kaleetana vitaminiska zaaid ay muhiim u yihiin gabdhaheena Soomaaliyeed especially hooyooyinka vitaminiska aad ma u qaataan. ani waa ka warhayaa gabdhaha Soomaalida maxaa la dhihi jiray dad asxaab badan ale family badan ale yani way yar yihiin dad vitaminiskooda qaato. vitaminiskaaga daily u qaado muhiim ay qayb ka tahay maxaa la dhihi jiray quruxda jirkaaga vitaminada aad qaadanaysid. cuntada waxaa laga yaabaa inaan ka wada helin vitaminiska jirkeena u baahan yahay, soo waa u baahan tahay inaad vitamin qaatid especially markaad dumar tahay nafaqo badan uu jirkaaga u baahan yahay, nimanka aad kaga sii baahi badanaan vitaminiska. okay waxaa kaleeto oo quruxda jirkaaga qayb ka qaadanaya ama aragaaga inaa cabtid biyo badan ugu yaraan maalinka 3 liitar, xitaa 3 daada cabi karin 2 liitar ugu yaraan. yacni jirkaaga inuu biyo badan helo muhiim waaye, quruxda jirkaagana qayb ka qaadanay, caafimaadka jirkaagana qayb ka qaadanaa. yacni wax wal u fiirsada, wax walba idin sheegayo quruxda jir ahaan kaliya ama muuqaal ahaan kaliya muhiim u yahay, sidoo kale maxaa la dhihi jira caafimaadkaaga muhiim u yahay oo yacni jir ahaan. okay qodobka kaleeto isagana waxaa waaye jimicsi sameey ama exercise gurigaaga ku dhex sameey xitaa hadaadan awoodin inaad gym aadid. muhiim maaha inaad gym aadid oo banaanka aadid, guriga ku dhex sameey, xargaboodkaaga iska ciyaar, like active ahow, qof jirkiisa dhaqdhaqaaq badan sameey ahaw, boodbood, calorie badan gub, waxaa ku dhaha tv-ga ka geeso workout naaga cadaan sameynaya jiro youtube-ka meel walba ka buuxaan, la boodbood waxay sameynayaan ka daba sameey. waxaa waaye yacni jirkaaga inuu faad noqonin ka ilaali, zaaid yacni quruxda jirkaaga qayb uga qaadanaysaa exercise-ka. qofka gym awoodo aadi karo maxaa la dhihi jiray waaba kaas uu awoodaa. socodoo kaleeto sameey hadaa awoodid maalinka 40 daqiiqo 1 saac banaanka soo socon kartid, socodka aad u caafimaad uu yahay jirka. markii laga soo tago muuqaal ahaan yacni xitaa gudaha jirkaaga caafimaad u yahay socodka. activitieskaas muhiim waaye. maxaa kaloo idinku darsanaa skincare-ka ku dadaal, skincare-ka zaaid uu muhiim u yahay. gabdhaheena maxaa waaye qaar badan daawooyin kiimikaal isticmaalaan, kulay kiimikaalka dhibta leedahay ani inta ma ka sheegay idinkan waa ogtihiin anna waa ogahay. kiimikaalka wajigaaga inuu dila ma ahee waxaa wax kale ma ka faa'iideysid uu ku cadeynaya, laakiin jirkaaga waa ogtihiin yani damage u geysanaya ka badan. skincare ku dadaal, si dabiici ah maqaarkaaga u iftiimi, moisturizer u baahan tahay, body care u baahan tahay inaad jirkaaga dhan wada daryeeshid, yani mar walba oo helo qoyaan ku filan, kareemyaal fiican isticmaashid. waxaa waaye wajiga kaliya ma ah skincare-ka, sidoo kale timahaaga daryeeshid, waxyaabahaas oo dhan aa soo hosgalaayo. adiga ku dadaal maxaa la dhihi jiray daryeelka maqaarkaaga iyo timahaaga iyo wax walbo. okay qodobka xiga wuxuu noqonayaa dhis kalsoonida naftaada. ma fahanteen kalsoonida naftaada inaad dhis muhiim ah. dad badan gabdho badan oo aniba aqaano waxaa jiraan way qurux badan yihiin haddana kalsoonidooda ma dhisno, kalsoonida ku yar. soo gabadh waxay isku aragtaa inay qurxaneen, kaalaba ka dhaadhici waa qurux badan tahay, sabaraa laga qaado allah baay waa fool xumaha ay ku dhahay 10 mar maxaa la dhihi jiray sabarka fiirinaysaa, waxaa ku dhahay zoom ay soo saaraysaa, ani waa fool xumaha. kalsoonidan muhiim waaye nafta. ma fahanteen quruxda lagu sheegay dhan gudaha ka imaataa. waa inaa naftaada kalsooni ku qabtid, waa inaa u sheegtid gabarka qurux badan inaysan jirin naftaada inaa u sheegtid. sidoo kale xiro dhar qurux badan, yani midaan kalsoonida leh oo nafta leh soo hosgaliya. kalsoonida naftaada dhis, kalsooni inaa yeelatid waxaa qayb ka qaadanaya oo kalsoonidaada yani kor usoo qaadanta muuqaal ahaan inaa yacni xiran tahay dhar qurux badan kusoo saaraayo. ma fahante guriga kale markaad joogtid dhar oo ku jecleysiinaya naftaada xiro. anigoo kaleeto hadda waxyaaba aa sameeyo waxaa kamid ah oo zaaid ii jecleysiiyo markaa guriga joogo dhar waxaa xirtaa tight oo zaaid igu dhegan, mararka qaar dhar aad u gagaaban. diraca ma jecli inta badan xitaa hool markaa qabanayo, diraca baatiga ma jecli. diraca asaga dhan huluf waaye, like maku siinayo kalsooni badan, laakiin dharkan kaleeto markaa xirto fanaanad yar ama garan yar, surweel yar oo haaf gurigaaga ileen joogtahay, waxaa ku dhahay miraayad isku fiiriya aan dhan waa iscajabiyaa, waa isjeclaadaa. soo kalsoonideeda kor u qaadaa. soo quruxdaada waxyaaba soo saara waxaa kamid inaa xiritid dhar qurux badan. hadaa banaanka aadis kaliya dhar muhiim ma ah, marka guriga joogta xataa dhar qurux badan xiro, waxay kor u qaaday kalsoonida naftaada. qodobka ugu dambeeya maxaa waaye samee waxyaabaha ku farxad geliyo oo maxaa la dhihi jiray ku gaar ah. micnaha ku gaar markaa ku dhahayo naftaada waxyaaba farxad gelinayo u sameey. banaanka aad sometimes shopping soo sameyso, hadaa u baahan tahay maxaa la dhihi jiray massage soo sameyso. sidoo kale qodobkan isaga laftiisa waxaa raacsan
waxyaabaha ku farxad gelinaya samee, wax cusubna baro. Xirfadaha cusub quruxda qofka qeybay ka qaataan. Tusaale hadda ani make up bartay, make up ka bartay xirfad waaye. xirfadaas quruxdeeda qeybay ka tahay. Hadda waa kana ii marsan yahay wax yar oo simple ii marsan, waxaa ku dhahay daldaal iyo wax dhan ma iga muuqdo, make up yara dhac isku soo siiyay. Xirfaday ka mid tahay. Samee waxyaabo ku farxad geliyo, at the same time na baro xirfado cusub. Xirfadaha cusub waxyaabo badan ay noqon karaan. Hadda make up ku tusaale idinkaga soo qaatay, waxaa waaye quruxdaada qeyb ka qaadanayaan. Anise aaminsanahay way soo galayaan. Waa qodobka 8aad ee ugu dambeeyay. Waxaan rajeynayaa 8daas qodob aan idin soo sheegay insha Allah inaa wax uun ka faa'iidi doontaan. Waa idin soo koobay sababtoo ah muuqaalka ma jecli mar walbana waa idin sheegay in muuqaalada zaid u dheeraadaan oo lagu caajiso ma jecli. waxaa waaye isku dadaalno gabdhahayga special muuqaalada inta badan gabdhuhu ku socdaa. waxaa waaye marka aad faraxsan tahay, gudaha ka faraxsan tahay, korka ka faraxsan tahay, qurux badan tahay, aad dad kala saameyn kartaa. hooyo faraxsan ilmo faraxsan soo saarto, hooyo qurux badan ilmo qurux badan koriso. waxaa waaye maxaa la dhihi jiray isku dadaalno. hooyooyinkeena inta badan way is ilowaan gabdhaheena markay 2 da 3 da ay dhalaan, waxaa waaye way is sii daayaan, way cayilaan, too much u cayilaan, maxaa la dhihi jiray isla ma socdaan. waxaa waaye cayilkaas iyo waxaas laga yaabaa inuu stress ku sii noqdo. hadda cayilanta xataa muhiim waaye, iska warhaay, check up samee mararka qaar. maxaa la dhihi jiray waxaa laga yaabaa mararka qaar dadka qaar cayilka yacni inuu cunto ay cunin kaliya uu keenina uu keenayo hormoneska jirkooda wax ka qaldan yahay. haddaa aragtid overweight oo zaid inaa noqotay, dhakhtar tag, check up isku samee, hormoneskaaga okay inay yihiin fiiri. kadib haddii wax walba okay ku yihiin, isku dadaal cunto oo fiican cun. waxaa waa iska yaray maxaa la dhihi jiray dhafarka, jimicsi sameyso, waxyaabahaas miisaanka inuu kaa dhacay kaa caabinee. marka balanteena maxaa waaye inaan isku dadaalno insha Allah. muuqaal aad jeclaan laheedeen ama wax aad jeclaan laheedeen inaad dhiirgelin idin soo sameeyana ii soo sheeg qaybta commentiga iigu soo qora. waxaan rajeynayaa muuqaalka inaad ka hesheen. hadduu muuqaalku ku cajabiyo like saar insha Allah. saa hore idinkugu ballan qaaday waa wadi doonaa muuqaalada dhiirgelinta oo janaalka aan kusoo ziyaadiyey muddooyinkii dambe ama bilihii u dambeeyay. waana ku mahadsantihiin mar walbo ducooyinkiina iyo dhiirgelinta ii soo qortaan. aad ugu mahadsantihiin. ilaahay idin amaansado.